kulanti waxaan oo wanaagsan ku soo dhawaada wararka caawa qodobada aanu idiin hayno waxaa ka mid ah howlgalka bedelaya taliska AMISOM oo lagaga doodayo magaalada Muqdisho iyada oo howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM uu dhamaanayo dhamaadka bisha March ee sanadkan Faransiiska oo Imaaraadka Carabta ka caawinaya xoojinta nidaamka difaaca hawada si looga hortago weerarada diyaaradaha aan duuliyaal ahayn ee Xuutiyiinta Yemen Taiwan oo cambaaraysay heshiiska Shiinaha iyo Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine iyo Taiwan ayaa sheegtay inay xumeynayaan sumcadda ciyaaraha Olombikada jiilaalka ee ka furmaya China iyada oo koox Taiwan ka socota ka qayb galaysa tartanka wafdi ka socda Somaliland ayaa u safraya Taiwan isagoo oo Shiinuhu si adag uga soo horjeestay xiriirka laba-geesoodka ah ee u dhaxeeya Somaliland iyo Taiwan wararka la xiriira xiisada u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka waxaynu ku eegi doonaa awoodaha militari ee ciidanka Ukraine dowladda federaalka ee Soomaaliya midowga Afrika iyo saaxiibada beesha caalamka ayaa ku shiraya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyaga oo ka wada hadlaya waajibaadka shaqo ee howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya howlgalka midowga Afrika ee kumeel gaadhka ah ee Soomaaliya ayaa bedeli doona howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo waqtigiisu uu dhamaanayo 31 March ee sanadkan 2022 sida ku cad qaraarkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in qorshaha la soo jeediyay uu diiradda saari doono sidii loo hirgelin lahaa mudnaanta qorshaha kala guurka ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyay TSP waa istiraatiijiyad dhammaystiran oo ay dejisay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku si ay ugu jiheeyaan in si tartiib ah mas'uuliyadda amniga Soomaaliya loogu wareejiyo ciidamada amniga ee qaranka sida ay soo jeediyeen kooxda farsamada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo EAU waajibaadka howlgalka cusub ee midowga Afrika ee kumeel gaadhka ah ee Soomaaliya wuxuu noqon doonaa in la taageero dowladda federaalka si ay u fuliso ujeedooyinkeega istiraatiijiyadeed iyo mudnaanta ee TSP ayuu yidhi wasiirka gaashaandhiggu ku-xigeenkayga ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Anita Keki ayaa sheegtay in qaramada midoobay ay ka go'an tahay in si guul la dib u habeyn loogu sameeyo AMISOM iyada oo loo marayo wada tashi wada shaqaynaya isku dubarid qorshaha kala guurka ee Soomaaliya ayaa diiradda saaraya sidii Soomaaliya loo gaadhsiin lahaa isbedel amni oo dhammaystiran qaramada midoobayna waxaa ka go'an in ay taageerto hanaankan ay Soomaalidu hormuudka ka tahay waxaana rabaa in aan hoosta ka xariiqo in dib u habeynta AMISOM ee howlgalka cusub ay qayb muhiim ah ka tahay dadaalkan 20 February 2007 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u fasaxay midowga Afrika in Soomaaliya la geeyo howlgal nabad ilaalin kaasi oo waqtigaasi loogu talagalay inuu qaato 6 bilood si loo taageero dowladda Soomaaliya balse howlgalkaasi ayaa dheeraaday oo qaatay muddo ku dhow 15 sano Soomaaliya ayaa dagaal kula jirta kooxaha xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab iyo Daacish waxaana ku sugan ciidamo militari oo ka kala socda dalalka Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda si ay uga qayb qaataan ilaalinta nabadda iyo la dagaalanka kooxaha xiriirka la leh Al-Qaacida Faransiiska ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta doonayo inuu ka caawiyo xoojinta nidaamka difaaca hawada isagoo u adeegsanaya diyaaradaha dagaalka ee fadhigoodu yahay Abu Dhabi inay sahamiyaan hawada sare si ay uga hortagaan weeraro ka yimaada Xuutiyiinta Yemen talaabadan Faransiiska ayaa timid kadib markii dhawaan Imaaraadka Carabtu ay la kulmeen weeraro gantaalo ah iyo kuwa diyaaradaha aan duuliyaal lahayn ee Xuutiyiinta Yemen kuwaasi oo ay ku qaadeen qaybo ka mid ah Imaaraadka Carabta bishii hore 3 qof ayaa lagu dilay weeraro diyaarado aan duuliyaal lahayn oo ka dhacay meel u dhow Abu Dhabi Arbacadii Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqay inay fashiliyeen weeraro ay fulinayeen 3 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn kooxda isku magacawday guutooyinka Wacdul Xaq oo fadhigeedu yahay Ciraaq ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi
waxaa xusid mudan in Imaaraadka Carabtu ay qayb ka yihiin isbahaysiga militariga ee uu Sacuudigu hogaaminayo. waxa aanay dagaal kula jiraan Xuutiyiinta Yemen, waana sababta ka dambaysa in Xuutiyiinta Yemen ay bartilmaameedsadaan Imaaraadka Carabta. Paris waxay xiriir dhaqaale iyo mid siyaasadeed la leedahay Abu Dhabi, waxaanay saldhig ciidan oo joogto ah ku leedahay caasimadda Imaaraadka Carabta. Faransiiska ayaa bishii Disembar ee la soo dhaafay saxeexay heshiis uu ku iibinayo ilaa 80 diyaaradood oo nooca Rafale ah oo laga iibinayo Imaaraadka Carabta, waana heshiiskii ugu weynaa ee noociisa ah ee Faransiiska. qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka wasiirka difaaca ee Faransiiska ayaa ku tidhi Imaaraadka Carabta ayaa dhibanayaal u ahaa weeraro halis ah oo lagu qaaday dhulkooda bishii January si aan u muujino midnimada aan la leenahay dalka aan saaxiibka nahay. Faransiisku waxa uu go'aansaday in uu taageero militari siiyo, gaar ahaan inay hawada ka ilaaliyaan cid kasta oo ku soo xadgudubta. labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa Imaaraadka Carabta 2 jeer lagu weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha Xuutiyiinta. mid ka mid ah weerarada ayaa lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada Mareykanka ee fadhigoodu yahay Imaaraadka. weerarkaasi oo ay ka hortageen gantaalada difaaca hawada Patriot ee lagu farsameeyay waddanka Mareykanka. wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in heshiiska lala galay Abu Dhabi lagula socon doono fulinta howlgallada ka socda saldhigga cirka ee Al Dhafra, iyada oo la siinayo shidaal iyo awoodda difaaca cirka. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay howlgallada ay fulin doonto diyaaraddu waa kuwo qorshaysan oo ay iska kaashanayaan ciidamada cirka ee Imaaraadka si loo ogaado loogana hortago weerarada ay geysanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama gantaalada kuruuska ee lala beegsanayo Imaaraadka Carabta. saraakiisha Faransiiska ayaa sheegay in howlgallada shidaalsiinta iyo kormeerka joogtada ah ee diyaaradaha Rafale ay si gaar ah uga sameyn doonaan dhulka Imaaraadka Carabta. Mareykanka ayaa horaantii toddobaadkan sheegay inuu soo diri doono diyaarado dagaal si ay Imaaraadka Carabta uga caawiyaan ka hortagga Xuutiyiinta wixii ka dambeeyay weeraradii gantaalaha ahaa ee kooxda Ansaar ee Xuutiyiinta Yemen ay ku qaadeen Imaaraadka Carabta. wararka kalena waxaa ka mid ah sida ay sheegayaan ilaa waraadyo diblomaasiyadeed, waxaa maalmaha soo socda booqasho ku tegi doona Taiwan wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Dr. Ciise Kayd oo casuumad rasmi ah ka helay madaxweynaha Taiwan. waa markii u horeysay ee wafdi heer wasiir ah ay booqasho ku tagaan Taiwan intii ay Somaliland iyo Taiwan wada yeesheen xiriirka labageysoodka ah tan iyo bishii June ee sanadkii 2020. ilaa hadda waxa ay labada dal iska kaashanayaan dhinaca beeraha, tiknoolajiyadda, isgaarsiinta, caafimaadka iyo kalluumaysiga. wararku waxa ay intaasi ku darayaan in wafdiga Somaliland ee tagaya Taiwan ay ka mid yihiin wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire oo hore u soo ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland iyo wasiirka qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee Somaliland. Shiinaha ayaa si adag uga soo horjeestay xiriirka labageysoodka ah ee u dhexeeya Somaliland iyo Taiwan, waxaanu isku dayay in uu ku qanciyo Somaliland inay ka tanaasusho xiriirka labageysoodka ah ee ay la leedahay Taiwan si ay u helaan xiriir horumarineed iyo xafiiska isku xidhka Somaliland iyo Shiinaha. Shiinuhu waxa uu markii dambe u bedelay qorshihiisa dhanka Soomaaliya, balse ma cadda in bedelkiisu uu xiriir toos ah la leeyahay xiriirka labageysoodka ah ee Somaliland iyo Taiwan, iyo inuu weli sii wado isku daygii Shiinuhu uu ku doonayay inuu baabi'iyo xiriirka u dhexeeya labadooda. dhowaan ayay ahayd markii gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo khudbad ka jeedinayay shirweeyihii labaad ee xisbigaasi uu su'aalo ka keenay qiimaha uu xiriirka Somaliland iyo Taiwan u leeyahay raadinta aqoonsi caalami ah, waxaanu ku baaqay intaa bedelkeeda la wanaajiyo xiriirka jamhuuriyadda dalka Shiinaha. meeqaamka caalamiga ah ee Somaliland ayaa marba marka ka dambaysa kor u sii kacaya, iyada oo dalal badan ay si gaar ah u xiiseynayaan xiriir toos ah oo ay la yeeshaan Somaliland. Mareykanka ayaa sheegay inuu wada hadal kula jiro dowladda Somaliland oo ay ka wada hadli doonaan istiraatiijiyadda iyo iskaashiga dhinaca ammaanka. Taiwan ayaa cambaaraysay iyada oo wax la yaabo ku tilmaantay iskaashiga Shiinaha iyo Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine, waxaanay sheegtay inuu yahay mid aan xad lahayn waqtigan la bilaabayo ciyaaraha Olombikada xilliga qaboobaha ee jiilaalka. Taiwan ayaa sheegtay in dowladda Shiinuhu ay ceeb u soo jiidayso ciyaaraha. Shiinaha iyo Ruushka oo shir isugu yimid saacada ka hor inta aan si rasmi ah loo furin ciyaaraha Olombikada
ayaa sheegay in midba midka kale ka taageerayo iskaashiga ka dhanka ah Ukraine iyo Taiwan, iyaga oo ballan qaaday inay iska kaashanayaan wax badan oo ka dhan ah reer galbeedka. Ruushka ayaa ka dhawaajiyay inuu taageersan yahay mowqifka Shiinaha ee ah in Taiwan ay si dimuqraadi ah u maamusho, ayna tahay qayb aan laga maarmi karin oo ka tirsan Shiinaha, kana soo horjeedo madax-bannaanida jasiiradda Taiwan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa sheegtay in ay sheegashada been abuurka ah ee dowladda Shiinuhu ay sii wado ee ah in jasiiraddaasi ay ka tirsan tahay Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha ay la mid tahay dhaqankii Shiinuhu uu caadada u lahaa ee faafinta wararka been abuurka ah. Ma kordhinayso oo keliya nacaybka dadka Taiwan ay necab yihiin isla weynida iyo cagajuglaynta dowladda Shiinaha, ee waxa ay sidoo kale si cad ugu muujinaysaa dhammaan wadamada adduunka wejiga xun ee ballaadhinta cadhada iyo dhaawaca nabadda ee nidaamka shuuciga ah ee Shiinaha. Xilli indhaha caalamku ay ku foogan yihiin ciyaaraha Olombikada jiilaalka oo ay ku faraxsan yihiin ciyaartooydooda, ayaa dowladda Shiinuhu waxay u adeegsanaysaa shirmadaxeedka Ruushka inay ka qayb qaadato fidinta kelitalisnimada, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ku sheegtay war-saxaafadeedkeeda, iyadoo intaasi ku dartay tani waxay meelka dhac ku tahay calaamadda nabadda ee ay ka kooban yihiin giraamaha Olombikadu, waxaana diidi doona dadka Taiwan ee ay quudhsanayaan dalalka dimuqraadiga ahi. Maraykanka ayaa sidoo kale dhaleeceeyay kulanka labada hogaamiye, isagoo sheegay in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ay ahayd inuu kulanka u isticmaalo sidii loo dhimi lahaa xiisadda Ukraine. Safiirka Shiinaha u fadhiya Maraykanka ayaa ka digay isku dhac militari oo ka dhan ah Taiwan. Ciyaaraha Olombikada oo ay Taiwan u dirtay koox yar oo 4 ciyaartooy ah si ay ugu tartamaan dalkeeda ayaa ku soo beegmaysa xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda u dhaxaysa labada dhinac, iyada oo Shiinuhu uu si joogta ah maraakiib iyo diyaarado militari ugu soo dirayo jasiiraddaasi, halka Ruushku uu saaxiib dhow leeyahay Shiinaha. maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta iyo diblomaasiyadda iyo gaar ahaan wararka sirdoonka caalamka waxa aad ugu badan weerarka la hadalhayo in wadankaasi Ruushku uu ku qaadi doono wadankaasi Ukraine, taasi oo keentay in gaashaanbuurta NATO oo Maraykanku horkacaya ay gaashaanka u darwaraan Ruushka oo ay sheegaan in aanu ku dhicin in uu weeraro wadanka Ukraine, balse isagu arrintaasi marnaba dhig uma dhigin, waxaanu ciidamadiisa soo dhoobay xuduudda u dhaxaysa Ruushka iyo wadanka Ukraine. waxaana la sheegayaa in dhulka barfleyda ah ee barafku daadsan yahay ee wadankaasi Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeya ay ciidamo ka badan 100,000 oo askari oo ku hubaysan dabaabaadka noocyadooda kala duwan ay halkaasi ku sugan yihiin. dad badan ayaa haddaba waxay isweydiinayaan awoodda ciidamada wadanka Ukraine inta ay leeg tahay haddiiba ay isku dayaan inay iska caabiyaan xuduudda badan ee Ruushka. waxa marba marka dambaysa irka isku sii shareeraya xiisadda Ruushka iyo Ukraine, waxa laga cabsi qabaa in Ruushku tallaabo militari ka qaado Ukraine. haddaba awoodda Ukraine intee ay gaadhsiisan tahay marka la barbar dhigo awoodda militariga dalka Ruushka? Ukraine isuma dhigmaan oo waxa awood badan Ruushka, shaqana iskuma laha, balse dalka Ukraine ayaa 20kii sano ee ugu dambeeyay waxay dhisayeen militarigooda oo xoogan. dalalka reer galbeedka gaar ahaan Maraykanka ayaa taageerada militari ee ugu badan siinayay dalka Ukraine. tirada ciidamada Ukraine ayaa sida uu qoray wargeyska ka faalooda arrimaha militariga ee Global Firepower waxa ay gaadhaysaa 200,000 oo askari oo imika howlgali kara. waxa sidoo kale jira 250,000 oo askari oo kayd ah. dhanka diyaaradaha dagaalka waxa dalkaasi Ukraine ay haystaan 318 diyaaradood. dalka Ukraine ayaa kamid ah dalalka kaalmaha hore kaga jira dhanka taangiyada iyo gawaadhida gaashaaman. tirada taangiyada dalkaasi ayaa lagu sheegay inay dheeyihiin in ka badan 2596 taangi, halka gawaadhida gaashaaman ay tiradoodu dhan tahay in ka badan 12,000 oo gaadhi oo teknika ah. tirada madaafiicda goobta ee ay haystaan wadanka Ukraine waxa lagu sheegay inay dhan yihiin 10,760. dhanka ciidamada badda qalabka ay haystaan Ukraine waxa lagu qiyaasay 38 isugu jira maraakiib yaryar iyo doonyo, balse uma dhisna sida ciidamada dhulka oo kale. Ukraine ma iska difaaci kartaa Ruushka? waa su'aasha ugu badan ee la weydiinayo dadka ka faalooda arrimaha militariga iyo gaashaandhigga. dhanka awoodda militari ma aha laba dal oo isu dhigmi kara, waxaana hubaal ah in aanay u babac dhigi karin Ukraine awoodda wadanka Ruushka. Ruushku waa wadanka labaad ee ugu awoodda badan caalamka marka laga yimaado Maraykanka, halka ay Ukraine kaalinta 22aad kaga jirto dunida dhanka awoodda militari. haddii Ruushku uu soo dhaqaaqo Ukraine, waxay khubarada dhanka militarigu sheegayaan in aanay ciidamada Ukraine u babac dhigi karin awoodda culus ee Ruushka. gaashaanbuurta NATO ma difaaci doontaa Ukraine? waa su'aal kale
oo muhiim ah. heshiis ay galeen Ukraine iyo gaashaanbuurta NATO kuma difaaci karaan oo kaliya maadaama Ukraine aanay xubin ka ahayn gaashaanbuurtaasi, si kasta oo ay sanadihii ugu dambeeyay u doonayeen in ay xubin kaga noqdaan gaashaanbuurta NATO. balse NATO waxa ay xiriir dhow la leedahay Ukraine oo waxay heshaa hubka reer galbeedka oo uu ku jiro lidka loo yaqaano Javelin ee uu Mareykanku sameeyo oo lagaga hortago gantaalada taangiyada. haddaba Ruushku wuxuu og yahay in arrintaasi ay horseedi karto gargaar ballaaran oo military oo reer galbeedku ay siiyaan Ukraine. madaxweynaha waddanka Ukraine Zelensky waxa uu gaashaanbuurta NATO ugu baaqay in ay dardar geliso xubinnimadii waddanka Ukraine, laakiin colaadda waqtigan ka taagan halkaasi ayaa la filayaa in ay soo dedejiso in ay gaashaanbuurta NATO si rasmi ah xubin buuxda u siiso waddankaasi Ukraine.